kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan iyo si walba oo aad inoo daawanaysaan halkan waa xarunta dhexe ee telefishinka Somali News magaalada caasimadda ee Muqdisho stuudiyiisa ayuu idinkaga imaan doonaa barnaamijka madasha oo toddobaadkiiba aad marka daawataan TV-ga toddobaadkan barnaamijka waxaan ku eegi doonaa haddii Allah awood dale uu raali ka noqdo daawadayaasha inuu jecel lahayo mid ka mid ah qorayaashii ka qayb galay bandhig carweedkii heerka caalamiga ah ee Muqdisho International Book Fair oo dhawaan ka qabsoomay magaalada caasimadda ee Muqdisho halkaasi oo dadyow aad u fara badan ay goobjoog ka ahaayeen waxaan runtii halkaasi joogay dhalinyaro aad u da'yar kuwaasi oo buugaag ka turjumaya dalkeena dhibaatooyinka soo maray sidoo kale kuwa jacayl ah iyo kuwa sidoo kale hadimada qabyaalada iyo noocyo kale runtii ku soo bandhigay toddobaadkan barnaamijka waxaa marti ku ka qayb gali doona haddii Allah awood dale uu raali ka noqdo Warsame Cumar Xuseen oo ka mid ah qorayaashii ka qayb galay bandhig carweedkaasi dhawaan ka dhacay Muqdisho Somali News ayaa nasiib u yeelatay in ay la kulanto qoraagaasi marka hore kaga mahadcelinaynaa runtii waqtigaana siisay marka xiga ku soo dhaw barnaamijka awriya Idris aad baad u mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha iyo maamulka muqbahaya caalamiga ee Som News aad baan ugu mahadcelinayaa waa salaamantiin waan dhawahay waa ku dhawahay Som News bal horta dadku isma yaqaanaan dhawaan baad shaashadaha la iska arkay markii bandhig carweedku dhacay si kooban Warsame Cumar Xuseen oo qofma waa su'aal fiican taariikh sida u sii weyn runtii bixin maayo da'dayda iska yar laakiin meelaan ku dhashay waxbarashadayda un hadda aan wado haddaan in yar taabto sanad kale suma sheego xogaa waa la hela qariyaa waxaan ku dhashay gobolka Gedo magaalo Ceelcadda la yiraahdo baan ku dhashay waxbarashadeedii dugsiga quraanka ana nidhahdee degmada Ceelcadde baadiyaheeda miyigeeda meel la yiraahdo Shiidley meesha baan ku dhashay tuulada yar dugsigii quraanka kariimka intii hore quraanka waxaan ku soo qaatay tuulada ayada kadib degmada Baardheer ee isla gobolkaasi Gedo baan u soo wareegay waxbarashadeedii dugsiga hoose dhexe baan ku qaatay kadib magaalada Muqdisho aan imi ku qaatay dugsigii sare haddana waxaan ahay arday dhigta jaamacadda Amuud ee magaalada Boorame cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda waa maasanta runtii aad aan ugu soo koobtay taariikhdaada kooban buugga aad qortay horta maanta aad u faaqileynaa aad iyo aad buuggaaga haddaan qaldinin magaciisa waa Maangarad si guud u sharax Maangarad haddaan magaca ku hormar markii hore maan iyo garad horta waa laba xaraf aan isu keenay macnaha guud ee magaca waxa weeyaan maskaxdayda waxay garatay inay wax samayn karto wax urin karto bulshada wax cusub ku soo kordhin karayso waa buug ka kooban 115 bog buu ka kooban yahay waxaan ku qoray suugaan aniga ila qeyr ah dad baa ay dhahaa abwaan warsamsan abwaan may suugaanta igu soo qaxday Soomaalida waad maqashaa qaxootiga Kenya qaxootiga Yemen burburkii kadib wax walba way isbedeleen suugaan yar oo igu soo qaxday qaxootigaan ila joogto oo raggeedii markii la waayay aniga soo micin biday iyo qoraal asaas u sii weyneyn oo laftirkiisu raggeedii markii la waayay soo doontay baan ku qoray buugan runtii farxad bay ii ahayd oo inaan wax qoro wax igu jiray bay ahayd oo aan isleeyahay wax kugu jiray ahayd ayadoo saa tahay haddana waxaan istaa fariin hawl qaran baad qabatay adiga baa istire luuqad 25 sano ku dhawaad aan wax eray bixina laga sameyn waxba lagu darin intaan ka aqaano iskuul manhaj waxbarasho Soomaali aan arago saxaafadda BBC iyo TV-da Soomaaliya aan ka bartay markaan dana eegto dhalinyarta maanta iyo luuqadii maksay isulmayso marka inaad isxilqaanto wax qorto waajib qof kasta saaran bay ahayd marka isxilqaamida baan ku soo saaray baan oran karayaa diiwaankan yar ee Maangarad inta bay ahayd waayahay horta qofka hadduu wax qorayo
oo buug soo saaray dee ma hawl yara aad iyo runtii dadaal bay u baahan tahay iyo dulqaad runtii juhdi in la geliyo waqti badan baa kaga lumay buuggan mangarad runtii aad adigu qortay goormaad bilowday goormaad runtii aad dhamayso aad soo bandhigtay buuggan waxaan bilaabay waqti aada u fog 2013 baan bilaabay markaan aniga wax sameeyo ama aan wax computerkayga ku qortay ka bixin computerkayga aanun baa haysto laakiin markaan doonay inay bulshada dhex galaan ay faa'iidaan wax cuntamay waa inay bulshada u geeyaan oo bulshadu qaadan karayaan waxna ka faa'iidayaan marka ayada 2013 baan bilaabay wadanku ma lahayn dee carwadii haddoo kale muqdisho laguma qaban hargeysa lagu qaban jiray oo sanadkii 8aad maraysay dhiiranaan la-aan ah haddii aad wax qorto xageed geyn doontaa way jirta inkastoo isleeyahay hadda waa laga baxay marka intii carwada bugaagta muqdisho la qabtay sanadka 2015 bishii 7aad baan daabacay buugayga 2013 ilaa 2015 bishii 7aad waqtigaa u dhaxaysaan qoreeyay maadaama arday jaamacadeed ahay waxbarashada kale igu xiriirto waqtigaa buu iga qaatay waqtiga aad u kooban aad iyo aad buugga dabcan dhowr angal weyn jacaylna wuu ku jiraa siyaasadina kama maran dabcan aad iyo aad waxaan wax kaa weydiinayaa oo runtii aan rabnaa annaga iyo daawadayaashaba warsame cumar xuseen muxuu ku keenay horta waa ereyga ah ii sheeg bureeqo iigu sheeg aytariso waxa weeyo hal abuurka suugaanyahanka waa afhayeenka bulshada aad iyo anuu markaan buug akhrinayo guriga joogo buug akhriyo waxaa iga aan oga xiisa badanahay markaan suuqa aado bulshada soo akhristo bulshada laftigeeda cilmi kale in la soo akhriyo akhriska bulshada baan anaga fasirnaayan haddana wax ka sameynaa haa bureeqa igu sheega 2011 bay ahayd rag badan oo asxaabaan wada soconay qisaduna igama dheereen anigu bay isla ahayd kaftana way iska ahaydoo si kaftan ay ku bilaabatay 2012 koonfurta Soomaaliya ama guud ahaan baan idhaahdaa abaaraha ka jiray dhalinyaro badan oo wax jaamacada ka yimid iyo wax iskuula ka tagay iyo deegaankii baa la isugu tagay marka waxay noqotay in bulshadii ninkii biyo dhaamin ka qayb qaadan karo uu ka qayb qaato ninkii caafimaad ka qayb qaadan karo adig voluntary in lagu shaqeeyo bay noqotay maalin maalmaha ka mid anagoo kooxa baanu baadiyaan maraynay ari meel dhaqayaan soo galnay ari gabar baa la joogtay gabar baa ariga la joogtay ninaan saaxiibanahay baa iga hor arkay oo wuxuu igu yiri eray marna aan ku qoslo marna aan la yaabo warniyo malaa'ig dooreedaa fiiri igu yiri malaa'ig dooreed malaha waxaan u fahmay gabar aad u qurxan ma arkay gabar aad u qurxan maan aragnay waxaan ku niri warnimayow gabadhaan soo barnay gaariga baljoojiyo suga orod baa la igu yiri dhaqanka magaalada saawahay kan baadiyin waa kala duwan farqi baa u dhexeeya gabadhi geed bay xagiseegto ana sheekaan bilowna riibaran baa ugu tiri marka de markay baadiyo lasu yimaado caadi baa lasu wareystaayo meesha ariga kasoo dareerisay reerku wuxuu yahay wax badan baa laska wareystay waxay ugu bilowda waa fiican nahay oo baygan baan ari kasoo dareeriyay oo ree hebel baan nahay oo ciddaanan kasoo baxay ma isbaran karnaa baan ku yiri okay doctor magacaada ii sheeg baan bureeqa la idhaahdo ugu tiri haye lambarkii qor baan ku yiri say tiri lambar see ah lambarku muxuu ahaa hadii telefoon ma lihid ba mayo telefoon ma lihiye walaashay iga weyn oo dawda awru dhaamisay maanta baa telefoon leh laakiin telefoonkeeda dusha kama aqaan lambarkeeda haddii aad soo noqonayso waan kaaga soo qori nimankiina waa qiilina warna keen bay leeyihin waan kasoo tegay anoo telefoon la-aan magaaladii markaa nimid maalmo kadib waan baxayo camuud baan aaday
sheekadii baa igu soo dhacday marka inaan wax ka sameeyo wax ka reebo maskaxda aad iyo marka waxaan sawirayay gabadhii dee aan ballanay iyo safarka degdeg oo ay soo galay labadii baa isqaaday iyo gabadhu waxay sawiran doonto aad ninkan beelow waa bini aadam aad iyo waxaan aad uga xumayd inaan soo qaato gabayo badan oo ka dambeeyay oo maansada rag ay kusoo jawaabeen uu ka mid yahay tafaftiraha buugayga abwaan axmed maxamed maxamuud fiilaan oo aad u salaamayo wadanka Australia joogo inkastoo hal maansa ka xasuusto qosla maansada marka waxay ahayd bureeq igu sheega anoo bila maqnaayo bulshadii u xiiso soo booqday ehelkii asxaabtii barbaartii soo bila gadaashood ceelcada uma bixino bankii cadaaya bardihii maan tegin waa gartay soo goor barqaho bardihii balaarnaa babayga iyo cambaha iyo caanihii ka buuxaan soo baalka maan marin soo bidhaan qurxoon oo baga uu jeclaaday bardihii kumaan arag soo baaqa isheediya kuma eegin baalaha ilaan waa bureeqoo dhaqan lagu barbaarshay soo xishood lamay bixin gabdhaha marka la eego hoos bay yara eegaan moogta aad iyo aad soo xishood lamay bixin tala way igu baahdo inaan yar bariisho waraysiga ku badiyaa bogaygii kamaan helin xaggeedii usoo baxayo ugu imid barteedoo midigtaan u bixiyo dabadeed bareediyo sheekooyin barax la amaahmaahyo badan iyo murtidii ma baanayn waxaan idhi bureeqoy intaan beled maraayay bay iyo bakool iyo baar dheere iyo gado bay dhabajanaay iyo burcayo sanaag iyo boorama ilaa boon ruux saa u bilic dheer soomaali badankeed barahay degaan iyo kuma arag beledkee bandarkeed ku noolayd mahadha xagee lagaa soo saarin adeer intaasoo dee magaalo waa tirisay bandarkeed ku noolayd waxay tiri baashow waxay tiri war baashow waxay tiri baashow in adeer buunbuunis amaaniya marba buuri saartay uma bogina baashow waxaan ahay bulshada oo banka ceelcad iyo beledkan ku noolahay weligay bil kama tegin beled xaawadaa dhow kuma baadin weligay beled xaawadaa dhowankay weligay ma tegin bilanba markay bilan intaa tiri runtii waan u bogayo caqligeeda badan iyo xishoodkeeda buuxee waa baraxla inantuyo soo wixii bogaygiiyo beerkay ugu tabaayay ma butaacin caashiq dee waan wax sheegtaa dee marba dilkaad isla gaaray waxaan idhi bureeqoy waa anigan balbelayo caashaq igu beermay bogsan maayo jeeraad baaqayga maqashee baashaada hadaloo fikirkaaga boobsiye ilan waa bilcoon dumar barashada tacliintii hiddo lagu barbaarishay baaqaygii may maqal waxay tidhi baashow beerkaada waxa galay cishqigan biyo dhigay ballan waxaan ku marayaa inaan kuu bayaanshee adna boowahayga walwal ha isku beerina barta aynu joognaa bardaha ku yaallo suuqo iyo badidii bulshada maraysa waa inoo barkulanka halkaan dee halkaan dee niman baa kula socdo kula joogo oo dee waana waddo dad baa marayee bal meel qumanoo isku wareysano aad iyo aad meel gobi ku hasawdo bilan baa intaa tiri anna waan u bogayo hadal kama bixinoo buug kale maan furin anigoo bukaan oo igu beermay jacayl oo basanbaas aan ahay beydkaygii maan tegin qadadii bisleeyada laga cunayay beydkana soobaaliis kama dhiginoo boga uma jiifsananoo bartaydii bustii ku hoos jira boodaya moobeel baaqiisi u yimid baashii aabbaha iyo bilan hooyada iyo barbaartii imay oran berri waad baxaysaa la bilow duristii boorama tegaysaa baaqan ma istacaawe isdiyaari baashow xaddi baa la furayaa bal isdiyaari bureeqadan jeclaadana ballan baan lahayn haddaan baajo caawana beenaala bay oran boqorka ilaahayn baryadiisa maan gelin rabbow baaqda gaarigu berihiisa guuxiyo laga waayo baasiin baraweyne roob iyo webidu butaacaan gaadiidku baaqda meel la mare la waayo iska yar baaqdo baryadii ma soconoo beydkaa laigu yimid oo laigu qaad baabuur anoo boorsadeedii bartanka ku dheganayso banaadir maan tegin bureeqadan jeclaadana beello u qorantay marka sugaanyahankii deegaankaan rabaa inaan baldhaho gabadhii halaga ergeeyo gabadhi haloo tago barbaartii dhulkayga u bawayaashaan jeclaayow barbaartii dhulkayga u bawayaashaan jeclaayow bankii caddaaya bardihii tagoo bureeqa igu sheega beellow inaan noqon boqortiisa qoran tahay wuxuu wax dhacay ahaayeen marka dee waxaad ii sheeg garnaqsi ka bixinaysaa wixii dhacayda inaadan adiga dee mas-uul ka ahayno aada iyo aad horta aad baan oga xumaa inaan sugaantii caawa wada haynin oo aan jeclaa inaan soo qaado nin baa markiiba soo jawaabiyey wuxuu yidhi gabay ruuxa abwaan axmed maxamed maxamuud fiilaan runtii gabayo badan baa ka dambeeyey laakiin waxa kaliya on ka xasuustay ahayd gabaygii ugu horreeyey golokafulkii horreeyey Facebook markaad wax soo daabacdo commentiska commenti baa golokaful laga dhigay golokafulka hadda commenti isu bedelay wuxuu yidhi gabay ruuxa aan baran aan kala bayaansanin
gabay ruuxa aan baran aan kala bayaansanin waquu miraha beeyaa ka dhigaa biraan jabin haddaan baasha mariye xaajadii adii bilan sheekadii muxuu yidhi xaajadii adii bilan sheekadii dhexnina igu marisay beydoo waxay tiri ina boqor yarku hadal badnaaya haddana miisaanka gabay bilan biimeyn ogaayaa ballan qaban ogaayaa haddana ka bixi ogaayaa alla been badnaaya ninkaa gabadhii bu igu soo diray alla been laakiin wuu kasoo alla been badnaaya bay kusoo tiri ma sii xasuusta intii kale inkastoo jeclaa sugaad inaan soo qaado intaa baan ka xasuustaa rag badan baa laakiin abwaan cabdi duse abwaan la dhaho suugaan badan baa laga tiriyey marka dee horta gabadhii waa adigii ku yirida inaadan horta beenaala ahayn oo dee horta wixii dhacayna aad garnaqsi ka bixisay horta gabadhii kumaysa soo jawaab laakiin dee abwaankii baa hadda sheekadii maadaamuu dee afhayeenka bulshada ahaa wuu gabayo badnaa markaa gabadhii wuu yidhi waa ka daayo waxaan uri gabadha soo ma ahayn dee adoon ba joogin caradii ostri joogo gabadha warkamaa soo tabine waa seeyo suu yidhi Facebook ay igu soo dirtay adiga maxaad dareentay markaa mayd waan iska dareemayda koox kaftankii un sheekada dhan baa kaftan iska ahayd kadib waxaan ku werniyo baashi ka daayo markii dambe wuxuu niyo gabadh waa kuu doonayaay meeshii joogtay tilmaan maase kalaa jirtay oo baaqa ila gara la yidhaahdo oo meeshii aan u tilmaamay aan ku arkay inantii kadib buu leey gabadhii aabaheed baan geelisinay waan kuu doonayaa hadda weli waa ka sugaya doonimaadkii weli waa laga sugayaa waa laga sugaya inuu gabadhii baarqab ka bixiyo markaas aan sugaynaa aad iyo aad waayahay horta runtii cajiib wey waxaa waa ereygaas ah bureeqo iigu sheega aad iyo aad marka si loo eego horta maogtahay abwaanada iyo fanaaniintuba runtii ama dadka dee bulshada indhaha u ah waxay dabcan ma ahan waxay sheegaanba in dee iyagu ay ku dhacday aad iyo dadkii waa afhayeenkii bulshada sidaa sheegtay aad iyo dee bulshada waxay ku dhacay unbay dadkii la wadaagayaan oo ay la hadlayaan kaga mahadnaqaya taa marka taa waa tii jacaylka oo cataawga iyo calaacalka iyo caawashada waynu aragnay aad iyo waxaan eegaynaa marka xagga siyaasadaan gelaynaa inkastoo jacaylka xitaa aan aada u faaqidayno aad iyo malaayiin wada xildoon ah 2012 September bishii 9aad doorashadii bay ahayd aad iyo aad ayaantaa baan sameeyey malaayiin wada xildoon ayaantaa bay soo baxday aad iyo magaalada campaign ka socday aad iyo waa ayaantii aan arkay oday dhaqameed siyaasiya macalin siyaasiya darawal siyaasiya waiter siyaasiya cid walbo siyaasi gabar xaafadii nooga shaqeynaysaan ku yiri inaad maxaad jeceshay inaad noqoto sayidina madaxweyne noqoto wadadii meesha noqon markaad magaalada soo aado gaariga soo raac sawir baa ku dhagan musharax maqaayada soo gato sawir baa ku dhagan waa musharax magaalada iskuulsida sawir baa ku dhagan waa musharax aduu wax kastoo dhaqaaqa sawir baa ku dhagan galab banaadir baan gaari ka raacay madiinaan deganaa u socday galabkaa bay ugu soo dhacday baabuurkan saarnaa baan meel kasta sawir kaga dhagay gaari mar baan isiri musharax baa iskale ma la kireystaan isir gaari soo gaari shacab ayaantaa bay ahayd malaayiin wada xildoona saabay ku timid oo ayaantaa baan sameeyey maansada malaayiin wada xildoona markaa waxay lahayd inaan maansiya tix sheego inaan meershoon macneeyo inaan gabay soo maleego maskaxdiiyo maanku diidiye horaan uga maanacay taase inaan maantana dhawaaqo inaan geeraaro meersho waxbaa igu mudo naftayda qalbiga maankaa yidhi bulshada waxuu muujiyo masiirka ummadaada sheeg inaan de wax sheego masiir bay ummadayda sheego waajib bay ahayd masiirka ummadaada sheeg markuu qarankii mugdiyey markay midnimadii halowday markay midnimadii halowday markay maxabadu idlaatay markii qabiil loo miciintay markii muruq la isu sheegtay markuu midabkii dalkeena muuqaalka quruxdii suushay hees baan maqli jiray jidka magaca dheere maka loogu magac daray sarihii bidixii midig ma mililecdeen weli
marka dad baa u bedelaan markay runtana ka sheega ma milcdeen weli haddana ma hunqoocdeen ayaan maqlay burburkay ka yaabeen moogta muuqaalka quruxdii suushay siyaasaddu wada maroortay markuu nin walba wax maagay markii madaxnimo la raashay markuu qabqabluhu ismuujay markuu xooggii dalkeena markuu hawshiisa moogay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Afrika badankeed xorriyad maqal jirta laakiin maanta ma jirin markay ahayd markuu xooggii dalkeena markuu hawshiisa moogay markay mooryaan unkowday macnihii xooggii dalkeena markuu naxashuu meeyday warsoo mooryaan qabiili dalkii ma marin habaabin qabqablayaal baa kacay wax badan baa la soo maray isbedel badan baa dhacay anoo taa la yaaban bay nana sii dhici doontaa anoo dhibtaa markay timaaday anoo murugadu haysa anoo maqan oo mashquulsan waxaan bisna soo mudhiiray arrin maankaygu diiday tii baan la sii yaabanaa kun baa masraxii istaagtay mid baa yidhi anaa mas-uula mid baa yidhi ma aha diiday anaa mudane isiiya xilkan ay magacaaba caawa maatada dumarkiiyo dhallaanka mashxarad ay wada tumaanay anaa miigana dad yahow mas-uulkiinii ma ah niman yahow anaa mas-uuliin ah balaayiin wada xildoona musuq maasuquu ku baahay markiiba may odhan haa wadniga bal maxaa tahay maxaad qabanaysaa lisma weydiin markiiba haa baa la yidhi balaayiin wada xildoona musuq maasuquu ku baahay markiiba may odhanin haa markii ereygaa la sheegay dadkuna ay wada maqleen wadanigiisa uma oran mushkilad weeyaan dhib weyn mar unbaa laga shalay dalka dad u naxaa jiro dho taa mar unbaa laga shalay raggii maqaarsaarkan keenay mahiigiya ma la sanaawi Obama Ban Ki-moon guddoon marxabo suuban iyo mas-uul weeyaan ma oran rag baa xaggaa ka soo saacbada soo tumay soo marxabaynay markaan leeyahay raggii maqaarsaarkan keenay ma aha in ninkii marka la doortay una u jeedo laakiin siyaasiga Soomaalida oo tartamay baan si guud uga jeedaa mas-uul weeyaan ma oran ilaa wahalaq ma soo wuxuu doona ma mirtay intuu dhoofo mar duulay intuu maal u yabooshay intuu Soomaali magaceed intuu malaayiin ku doontay halka kuma soo macaash magaca Soomaalida wax lagu soo qaato si kale ku baxaan inta waa maragma doonta muslimku waa wada arkaa Soomaali waa wada marqaati wax badan baan madowga iyo markaas sheegto wixii dhacay waxa isleeda waa laga bixi karaa waana sheegtaa wax badan baan madowga iyo mugdiga guuraha marnee ma doonaa madax mas'uula mid mawlaha rabbi yaqaan mid aan musq noo horseedin marun midnimada u heesha shisheeyaha baas ka maarma ma doonaa madax mas'uula micnuhu waa dad yahow sidaan miraha u gaarna sidaan dib ugu midowno qabyaalada ka maarmo oo midnimada qaranka raaj hadii bahasha yar 4.5 la dhaho ku salaysan reeraysiga laga gudbo macnaha samaysmi laha laakiin inta xayndaabka yar lagu jiro wax weyn ma sii muuqanayaan macnaha guud marka waa inta tii ugu dambeysay hadda afkaaga kala baxaya hadda Soomaalida horta waa ogtahay dhamaantoodu way dagaalameen oo dagaal qabiila soo dhexmaray kadib wadayna burburtay marka horta la isma aaminayo aad hadda marka dadka la sheekaysato ama dadka bulshada deegaanka waa ama siyaasiyiinta ama dadka kale way tiraahdo waxaan 4.5 ka ama 4.5 maxaa oo keenay xilliga marka dadka marka in qarankeedan qabiil lagu doonto xaaladda dalkaasi daa la isma aaminayo xal baa la mooday xal baa loo aad mar baan lahaa mar baa yahayd inta daa qabiiliya 4.5 doorta dawladnimadu qori tahay cadaaladu diiday tahay dalkana la doonayo in dirhamku ka qaalisan yahay dawladna aan hananaad dadweyne waa sugunina qof walba aragti buu leeyahay aragtida shakhsiyadeed markaan ka hadlo 4.5 inta lagu jiro ma rajeynayo Soomaali weyn in dib loo midoobo aad inkastoo naxariista alle aan laga qoosan aad ma santahay horta jacaylkeena waa adigii ka hadlay aad u faaqiday intii
midda kale siyaasadii horta ma ogtahay siyaasaddu horta ceeb ma ahaan oo dadkao dhan baad wada siyaasiin sidaa sheegtay wacyiga sidaa aad iyo la yaaba maaha bal buuggan horta waa buug markaan aada runta u eegay horta waa buug dee xoogaa horta isha isku dhefano jacaylka iyo xagga siyaasatan wax kama marna waqti baa kaaga luma dabcan waxaan kaloo aan ku weydiinayaa Soomaali dhalad waa gabar Soomaaliyeed magacaad ba ka dareemaysaa inay asalta aad iyo aad aan ku biahay aad iyo aad qisay ku timi inaan sameeyo nin habeenkii uu ii sheekay isugu kaaya dambeysay isugu kaaya horeysay baan ka sameeyay habeenka baana kulanteen oo isugu horeeyay habeenka baad isugu yimid dibadda ma isku maarkin ninaan saaxiib nahay baa uu xanuunsaday isbitaal baa la geeyey isbitaalkii baa la jiifinaya anaa la socday markiin aan isbitaalkii ku hayo bay noqotay isbitaalka dee shaqaaluhu qaar habeenkii soo galaan qaarna subax hore shaqeeya nin baa lasoo bedelay dadkii maqribka soo galayay ahaa marka waxbaan ka dareemay ninka waana su-aali doonaa markii dambe isbitaalkii qolkii ninkii bukaankaabuu adi dabiibayay marka waxaan haddaan dho ninka kaniin buu u baahan yahay faleen buu soo qaataa haddana faleen buu u baahan yahay cirbad buu la yimaadaa war cirbad ma rabo haddaan barastamol buu soo qaataa ninkii waa fahmi waaya habeenkii marka saq dhex la joogo baan banaanka fadhiisana waan sheekaysan 7 sano 6 sano caafimaad baranayay sanadna aad u shaqo raadis waxba ku jiray sanadkii 8 wey 8 sano gabar jecel yahay 8 sano 6 sano ma aha 2 sano meel alle meel aadami yaqaan uu waay ma dhimatay ma qaraxday ma burburtay warba ma hayo reerkoodana waxa ka muusa garanayno cid isu dhow inuu kala xiriiro muusa garanay emailkii waxa la iska xiriir telefoon warkii ha sheegin wixii dhan wax ka soo jawaabo ma leh telefoon waa iska dansan emailna halkii habeen konta waraqa oo dira wax ka soo jawaabo ma la saar ninkan iyo dad diin baa ku jira maansada waraaq u dhiibay oo dadku aad ii su'aalaan hadaan ninkan iyo shimraad waraaq u dhiibto xaka markuu buu xagan u soo uu jawaab soo celiya gabar uu dhimatay oo ninka soo xawaa dhibaato diinka saa socod gaaban bal intuu mid kale ka helay ama qalbigiisa ka baxayso diinka waraaqda si sidoo u seeta dheere si uu soo qosan dinkiisa u sii sarreeyo diin ma waraaq u dhiibay marka maxaa laga sameeyay diinku de horta waraaqda uu sii sidaa wuxuu soo sheegay Allah marka intuu ninkan niyada ka jabi lahaa waxa ay waa intaasoo mid kale ilaahay u qadaro mid kale bartee bal u seeta dheere ama intaayo iska samray maskaxiisa ka baxday bal inta shimbir iyo wariyay waxa ugu dhiibi lahayd shimbir iyo madooshaay hadii aan waraaqaha ugu qoro wariyahayga oo kama iga gaartay hawlaha dad martaan habeenkii warkay soo sheegay bal diinkaas socod gaabane bal diinka ugu dhiibi marka diinka de halba horta si uu muuqdaayo oo socod gaaban yahay mid kalena way jirtaayo jacaylku waa sir laba qof buu ka dhaxeeya inta la hasaawayo warkeeda sheegin hadii la isguursadana de ninka ay xaaskiisa bay ka dhaxaysa inta la hasaawayna labadooda bay ka dhaxaysa wax bulshada la hortago looga sheekaysta ma diinku de meel wax lagu qarsan karo qof wax lagu qarsan karay buule waxna bal waraaq xagga u gilaa u qariye marka xigmadta aad iyo marka diinku horta aad buu socod gaaban yahay oo hortaas waa cajiib aad iyo wixii loo dhiibay runtii qofkaas horta xawrajadiisu de waa un rajacayl ku jirta laakiin de waxa laga yaabaa in de isagoo diinkii maqan oo sugaya in de meel kale wax ka helo aad iyo sida saxda ah aad iyo marka taa horta aad ba runtii waa qisa cajiib ah markii loo eego marka waa niyo horta jacaylku shakhsiyan aad u sii iskutiin لو جعل ذا كله عدنا العصاية ماركت الصيا وصاني قصر جعلت لفتيس جعل كاكا قفهم واحد عليه المجر نبى يقول يرينه بالود ملاذ صح كوري ها
سيري ما سيار كان عبتها مسقات كان عمتها haye صار ما بالودان بس كسو أقول haye إنا وح قران وح أخري وبالود waa balwad إنا برون ديلو waa وبالود balwad إنا ضدك وشاك إنا جعله وبالود aad iyo إنا صحافة جعلها وبالود aad iyo wax kastaa balwada qofku wuxuu jecel yahay balwad ha hubigiisa ha aad iyo aniguna iska reera jecel wax hal nacaw ma qabo haye weligay maan samayn maase naceeb anoo qisooyinkii arkayaan samayn in la isnacabo ma qabo ha marka waxaa leedahay jacaylku waanba ka samaysanaabo horta taa horta been ma aha aad iyo laakiin jacaylku iyo de nacaybku dee horta waa lamaan ma kala haray aad iyo dee hadduu jacayl yimaado nacaybna wuu imaanaya marka dee waxaa arkaysa reero isjecelo dee hadda nacaybkii haddana runtii dee sallig u noqda jacaylkii ugu horreeyay adigu ma xusuusan kartaa nihow horta sheeko dheer bay ahayd sax waxay ahayd sanad dhaxdaay bay ahayd haye waayar iima baryina sanad dhaxdaa bay ahayd sax suugaanta waxaa la dhahaa saddex wey aad iyo waa hawli keentay hidda keentay iyo hiba keentay aad iyo tan hawli keentayda la sheegaa la dhahaa hebel jacayl baa kasoo saaray oo tuu lahaa sayid maxamed haddaan gabayga uurka bukiya arami kaa keenin aad iyo ama olol xanuun iyo jacayl kugu ijbaarayn afkun baad ka leedahay taxuu arar ma yeeshaan aad iyo aad ha nafsida saxda haa ayaan buu si sibiqa igu soo maray haye waana wax gabayga iga keenayba aad iyo hawli keentadii wey sax gabaygu iga keenaba haye waa gabar iskuul baan wada dhiganaa taleefon ma lihayna taleefon ma laha meesha waxaa ged meeshu waa baar dheere geda ha aad iyo taleefon male ana taleefon ma lihi ku darso aabaheed baa macalin ah xagga iskuulka ha haye maalinkii haddaan iskuulka israaca layn asagaaba kaxeeyo gaariyaro markeedu le ku qaataa gabadhii buu ka haystaa haa haye inta galaaska lagu jiraan waraaqa yareer isu qornaayo xaggaabay hawsheeda ka socotaa haye habeen taleefanada waalidiinta haddii la hel xaggaaba la iskaga soo dhiibaa aad iyo aad adoo sheeko aad u dhib badan bay ahayd haye maalin maalmaha ka mid a masaajid gurigooda loo sii hormaro baan bacdulmaqrabkii cumdatul axkaam ka raacan jiray aad iyo aad galabkii dambe masaajidkaan usii socday maqrabkii gurigaan ka weysaysto adinkiibaa waa la adimayaa masaajid aan ku tukado kitaabkii aan soo dhagaysto axaadiista habeen hore la akriyo kale aan kasoo baxo aad iyo baa doonaya sax gurigoo la tuurtuurayaan arkay haye warnin qaaday qoladii ree dariskaayo ree quracyaa ka dhintay sax dee gobolna waa lais yaqaanay nin kasta iyo gabadhu la sheekaysto waa la yaqaan ha waxaasoo ma xertii baan masaajid ugu tagay asxaabtan waryahay wacaa tii yarayd dee waa la meersanaya waa seede warba kameyn xaafadda la tuurtuurayn qof xanuunsan yahan moodaya sax anagoo sheekadayna sheekhii baa soo fariistay xalqadii kitaabkaa la fariistay aad iyo wareeg dheer markay soo wareegtay kasoo bax baa lagu yiri xadiista xalay ilaa 5 xadiis sax qosol badan bay ahayd sax xadiiska markii la dhameeyo raawi baa jira soo ma aad iyo aad sheekhii baa xadiis ma dhameeyay ugu raawiga sheeg anuu masaajidka ma jooga xaafadii baan jiraa la soco laakiin qolof ahaan waa joogta haa laakiin miirkii ama haa saan dhinacan abi heblaaya ayada laftirkeed sheegay ku tiri haye xertii qoslayso arag sheekhin waa ku darsan haye masaajidkii magaalada laga maqlay maqad qosolkii haye habeenkaa ka hor gabay ma samayn sax gurigaan imid inaan gabay sameeyay noqotay aad iyo maasaan sameeyey 3 bayt oo naftayda ay hamburgoon la nafteeda oo nafta wixii dhacay kaga reebayay aad iyo haddaan ka soo qaato waxay ahayd naftayda ay hamburgoon ha u muhon qof aan rabin muxubiya jacaylka kaama suugay libintii iyo sharaftaad mudnayd oo meeqaam aanan kula rabin milgay inaanu kuu sidin ruux kaa maarmay mudanay naftayda ay hamuusoon ha u madiixin milicsiga midda nacday galgacalka mawjada badweyntana ha maquuran weligaa hirka maayadiisana yaani moolka kugu rid talaa lagu meel maraayo nafii miisaanka saar mahuraan wax kuwa ama jiiran wax kaa maqan dee wax ku dhaafay oo kaa tagay dee maxaad ka egeegi maxaad ka egeegi laakiin naftu mar bay ku hogaamisaa aad iyo aad markaad naftaada dee xaqiiqda u sheegtay maxay kuu soo celisay ma qanacdo ma tagto ma qoorsato dee waa dantaa qasbaysa in la qanco dantaa qasbaysa marka waxaa way qoorsato oo dee way sabartay
laakiin jacaylkaasi xanuunka badan hadimadiisii ma ka kabsatay mise dee wax kasta go-aankay ku xiran yihiin naftu waxaad kula hadasho dhado waxaa samee bay ku xiran tahay maalmo kadib dee meelahay kalaan iska ordayay waa ilowdaba wixii dhammaan dee wadantaa qasbayso laakiin markii hore jacaylku labadiina idin kama dhexin malaha wuxuu kugu koobnay adigu may labadanada wuu naga dhexeeyey laakiin soomaalida waxaa la dhahaa habaar iyo duca midda hore waxaa la dhahaa qori cad iyo qori qalalan marka taabay ahayd raalli kama ahayn afka loo geliyay aad iyo aad marka laanno marka waa qaracaysa haddaan qofkii xiriirka kala dhexeeya aysan ku qanacsanin wax dhacaya inaad sabartaso aad iyo aad kadib marka wax kaloo dhibaato kale oo xagga jacaylka kuma soo mayniyow kadib anoon u badnaynba dee markaad wax baranayso nidaamka waxbarashada ku jirto waxyaalo badan oo waqti dhumiskaas ka jiro aanan saas usii danayn marka anigoo iskaga haray oo baddiisii aanan horeyba sii gelin marka kadib may marka waxay lahayd simantaan jeclaayay sanbabada wadnaha iyo saableyda feeraha sayrayaasha dhiiggii qalbigayga saaqday soodintii jacaylkaay muddan kugu sahwinayo sawirkaaga raadshoon cunto kaaga soomoo dhulka waan socdaalo safar baan ku wada maray saylac ilaa iyo harar sanaag ilaa iyo hawd taleex ilaa iyo salaal surmadii afgooyiyo soonihii kismaayo laascaano sool iyo saakow ilaa jilib simanay dhammaantood socod baan ku wada tagay dadku ima kaasixin ruuxan ku su-aalaba suuradaada midabkii sifnahaaga muu garan naf baa kuu silcaysee simanay bal ii sheeg halkaad ku sugan tahay bal halkaad joogto bal soo sheeg bal noo sheego simanay xusuustii weli igama suulino naf baa kuu silcaysoo cashaqu silsilay oo seetiyo hogaaniyo dabar uu ku saaqee simanay bal ii sheeg halkaad ku sugan tahay simanay bal ii sheeg halkaad ku sugan tahay simanay bal ii sheeg halkaad ku sugan tahay midabkaada saxan iyo sida saadir kuu qoray haddii aan sifeeyana ka salgaari maaye bal aan sadar ka sheegoon suugaanta ku cabiro simanay waxaa tahay soomaali dhaladoo midabkaada saxan iyo timahaaga soohanee sibrahaada gaariyo waxaa tahay sunaariyo suuriyaanka reer carab naf baa kuu silcaysee simanay bal ii sheeg halka aad ku sugan tahay malaha hablaha reer carbeed aad bay u qurxan yihiino wuu ku tusaaleeyey marka dee naf hadduu jacayl haleeyo wax kasta sheegta simanay bal ii sheeg halkaad ku sugan tahay inta samada duushiyo suxufiga wax qoriya kuwa saadaaliya cimilada saynisyahan dhammaantood akhbaartaada siiyo inaan weli silcaayo isrumeeyo caashaqu maan salowga kuu imaan sidaan ahay laguu tabin mise way ku sajeenoo dunidaadba saarneen dee suxufigii waraaq u dhiib wax kastoo cirka duula waraaq u dhiib saynisyahanadii kuwa buuraha wax kasoo baarbaaro wax u dhiib meel dhiman garan mayso wax sheega lama hayo diinka socodka gaabshaan fariin sugan u dhiibo qoloftiisa saaroo salkaan u dhigay ma socod gaabidiisu weli sii siqaayaa mise sarinka cawskiiyo qodax baa ka siibto ammaanadii ku muuse diin buu waraaq u dhiibtay marka dambe sidee baan bal yeelaa nafta ma isa seejaa surka ma isgooyaa sunta ma is siiyaa mise waa sugaayo sadka way iska dhowraa labadaas siyaabood kala saari waaye midee baan sameeyaa dee haddii suxufigii waraaq loo dhiibay saynisyahankii loo dhiibay wax kastoo samada duulo loo dhiibay diin marka dambe loo sii dhiibay ilaa haddana aan jawaab la helin dee ninkaa wuxuu sameeyey garan maayo laakiin xalku isaga garan kara marka si loo eego xalka isaga baa garan karaya marka sheekadu aad bay u fog tahay aad iyo aad ninkuna dee horta ma quusan karo haddii si loo eego aad iyo aad jawaab buu sugayaa aad iyo aad dee naf jacayl haleela marka waa adiga ogaayo intaas amaan ahan dee waa isaga dee ishaan dusha kala dhacay dee timaheedu quruxda badnaayo amaano qaab dhismeedkeedu amaano xitaa wuxuu ku tilmaamay midabkeeda xitaa inay dee carab tahay aad iyo aad marka waxba ma dhinna marka waa maasadii marka soomaali dhalad nuxur baa ku jira si loo eego jacayl weeye waa haddaad jeceshahay dee waa amaanaysaa xumaanba male aad iyo aad qof aad jeceshahay xumaan male aad iyo aad waa iska amaan un marka dee amaantana kale maogtahay amaano midna waa afka midna waa uurka midna soomaali dhalada malaha waa uurka uurka eed malaha
warka way ka muuqataa aad iyo mugta waxa waa la dareemi karaa mugta caashaan ma garanaysaa yoolka calashaan meesha u socoto asada ducdeeda waa la dareemaya cajiib waa jacay marka horena waa igu tiro dee sidan dee aan u dhubanahay waa iga dhab aad iyo maasha allah horta waa yahay nacaybku say isku tiin jacaylku waa adigii dee ka hadlay nacaybku saan hore kuugu sheegay baan hal isnacama qabo hal isnacama ma qabtid hal isnacama ma qabo hadda ka hora email bay gabar ii soo dirtay Kampala joogtaa waxaa ku tirniyow nin baan is jeclayno inaan tahriibnaan go'aansanay labada iyadaba waa reerna la dumaya ka soco gabadhii wiilkii inaan tahriibnaan go'aansanay laakiin maana sheekaysano waxay ugu tiri doon baa la raacayo doonta lacagteeda anaa asaan ku tashanaya asna anigu ugu tashanaya waa reer guuraya waa ismaana warsan hadda markii doontii la fuuli rabo waxa lama hayo ninkaan iyo sideedaba waa iga hor yimidba habeenkaa baan iri niyo waan jeclay tiri haddana meelan kaga taga garan maayo saan iri qadarkaan jeclaayo qalbigaiyo laabtiiyo wadnahaad ku qoran tahay qalbigaiyo wadnaha iyo laabtaad ku qoran tahay ba tiri balse horaa qiimo laa tiri laba qaawan weligood isma qaadi karaya maamaadi marka haddii naceeb loo soo dhawaado taabaa igu soo dhaweyd laakiin hal la isnacabo ma qabo haddii la isnaco xumaan unbaa imaanayso marka hal la isjeclaado uma qaba aniga horta jacaylku si buu u fiican yahay horta jacayl ma xumo aad iyo aad laakiin dad baa qaba jacaylka badan naceebta mararka qaarkood isu rogo ama isku bedelo ma qabtaa horta qolaba cilmiga ku takhasuseen cilmiga jacaylka malaha laga yaaba in layga weynyahay dad ay hawshiisa ahayd marka kolley laga yaabo inay keento jacaylka inta kanguurka ka hore waa xiisaa la dhaha xiisaa lagu macneeyaa wuxuuna hadduu xiisooda kaa bata laga yaaba dib ka soo nacdo marka laga yaabo inay aragtidaa sax tahay midda kale oo aan taa ka fogeyn dadku waxay yidhahdaan jacaylku inta dee haasaabaha la sameynayo gabadha iyo wiilku ay wada socdaan oo jacaylka xiriirka ay daadihinayaan kaas jacayl ma aha jacaylka wuxuu yimaada marka gabadha iyo wiilku ay aqal galaan aad iyo aad labadaa ka horta tan ka dambayso diiniyan baa noogula sheegayo mawadata waraxma waa tan yiri tan ka horeyso waa ka helid iyo xiiso qof waxbaad waad ka heshay wixii aad ka heshay markaan dhalinyarada noo suuqa maray sawir baan horta laabta ku sidanaa tayada saasay u ekaan doontaa iyo sawirkaa laabtaan ku sidana ugu jiraa marka inta la haasaawaya kolley waa ka helid iyo qof dooqiisa wixaa laakiin jacayl saas usii weyn inuu jirin baan rajeynaya maasha allah maasanta gabagabadii barnaamijkeenu runtii aan joognaa mar kale aad baan runtii kaaga mahadnaqaynaa waqtigaada qaaliga ah fariinta ugu dambeysa ee aad dirayso horta aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijkiinan dhammaan ummadda Soomaaliyeed jecel horumarka aad baan u salaamayaa guul iyo gobonimona waan rajeynayaa fariintayda ugu dambeyso dhalinyaro baan ahay dhalinyarada baan la dardaarmi jiray laakiin caawa odayaasha baan la dardaarmaya meel looga taga magacaawo horta dhalinyartu dhinacyo badan baan kala dardaarmaa had iyo jeer dhibaatada tahriibka iyo waxyaalaha kaleba horta ha ka joogaan hadda ka horaan laabadoo la isku tuuriyo laashkoo la tiigsada hanti kuma timaado tacab kuma heleysaan taa oo mar ah qof inaad isdisho qarankaada inaad dhaawacdo oo dhibaato horta markaas waa ka wacyigelinayaa inay iska daayaan aqoon-yahanka iyo daayarta maskaxda Fiona baaq baan u dirayaa in xalka qarankeenu uu yahay qalinka oo wax la qoro bulshadana wax loo faa'iideeyo odayaashuna waxa la dhahaa adduunyada
aragtay oo guurayso socoto wax xikmad iyo xamaasad labada la isku daray bay macna ka soo baxaa dhalinyaradu xamaasadii way helaan odayaasha xikmadii baan leeyahay xogaha ma arka waayaan dhiirigelintii dhalinyarada iyo xikmadiini ma arkaan leeyahay waan kaga fadhinaa waan ka sugaynaa anagu xamaasadayda diyaar baan nahay baaqayga intaasaan kusoo koobaya gabagabadiina runtii waan kusii siqaynaa fursadaan ku siineynaa halkan waan aragga Somali News inta ka daawanaysa yaa salaamaysa horta aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijkan caawaad igu martigeliseen muuqbayaha Somali News guud ahaan iyo gaar ahaanba aad baan u salaamaya shaqaalihiisa maamulkiisa iyo cid kastoo gacan ka geysatay haddaan dhaho asxaabteedaan salaamaya lama soo koobi karayo kuwa aan arag baanba intaan aqaano arag intaan aaladaha iska naqaanaha ka badan lama soo koobi karayo laakiin waxaa leeyahay horta guud ahaan waan salaamayaa ummadda muslimka meel kastoo joogaan gaar ahaan ummaddan luuqadeeda ku hadlaya Soomaaliyeed mid kasta gaduhu joogo cilmiga iyo garashada uu leeyahay baan ku salaamayaa waxaan si gaar ah u salaami lahaa anoo soo koobayo tafaftiraha buugayga abwaan Axmed Maxamed Maxamuud Fiilaan oo wadanka Australia joogo iyo dhammaan hal-abuurada Soomaaliyeed ee suugaanta samayso abwaan aadan Ibrahim aadan Asad reer Suudaan ardada wax Suudaan ka barata qoraa Axmed Sky dhalinyarada qalinleyda Soomaaliyeed ee reer Boorama Cabdiqaadir Qalinle ma soo koobi karayo Faysal Bariir Aadan abwaan aadan Shuuriye Ibrahim Maxamed Cabdi Wadani Faarax Xasan Xuseen walaashay qaali Kayf Aadan Cilmi walaashay Xaliimo Cumar Xuseen oo ah shakhsi runtii meeshaan maanta joogo soo gaarsiiyay waxbarashadayda Maxamed Xasan Cilmi dad badan ma soo koobi karayo aad baan wada salaamaya dhammaantiin ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay dhammaantiin waa idin jeclahay ma sha Allah qof aad si gaar ah hadda si guud baa dadkii wada salaantay si gaar ah malaha hadii waa jaaniso farsanaad leedahay tan waaridka ma aan ka soo tago oo si gaar ah u salaamay labadeeda waarid waxaan si gaar ah u salaami lahaa ardadeyda galaaska culumta dhaqaalaha iyo siyaasadda jaamacadda Camuud magacooda ma soo koobi karay guud ahaan galaaskayga aad baan u salaamaya junior class ma sha Allah waa tahay daawadayaasha aanu jecelnahay halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka madasha telefishinka Somali News oo toddobaadkiiba si joogto ah ugala socotaan toddobaadkan waxaa uu idinkaga imaanayay stuudiyaha uu telefishinka ku leeyahay magaalada caasimadda ee Muqdisho soo jeedintu waa aniga waxa Idruus Maxamuud Imaan dhanka kaamirada waa saaxiibkay Saxnuuni Axmed Maxamuud dhanka farsamada waa Cabdalla Buuti martida barnaamijka waxaan aad ugu mahadnaqayaa ustaadka qaaliga qoraaga da'da yar warsame Cumar Xuseen oo runtii wiigan ama toddobaadkan barnaamijka marti ku ahaa sidaas inoo jiliyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu